يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخيارتا dhamaantiin waa idin salaamayaa meel kasta adduunka joogtaanba. waa walaashii Muniira waxaan doonayaa Facebook arrimihiisa inaan wax yar aan ka qayb qaato insha Allah. wixii wanaagan ka dhahana ilaahay baa isoo siiyay, wixii xumaan oo dhahana shaydaanka ayaa mas'uulka ah. ikhwaani dhamaantiin horta ilaahay igina khalqay oo cirkan aad aragtay quruxda badan tir la'aanta dhisay ba waxaan ka baryanaa inuu caafimaadna siiyo tamaama, waliba sida xagga qalbiga. marka labaad waxaa waajiba xumaanta in laga hadlo. waa waajib, maaha wax barya ah, maaha wax oo sunno oo xataa ma aha oo iska yani sunno daciifa xataa maaha. waa waajib, waxay ka mid tahay shuruucaha muhiimka oo diinteedu ee in badanna lagu amaanay anaga. آية القرآن كيد وحي هاد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إلهي بان وأمان الحمد لله. لكن ميد بان إذن ويدينيا إن ما قف إذن كم إذا وحو دورت وحو يهماتا بليز هذه أي تهي سؤال شاهدو كويدي جوابتي دها كومنتي غاغان كسوغايا وانا wax really aan u baahanay inaan ogaado. aniga ma dooran qofkaan maanta ahay, adigana ma dooran qofka aad maanta tahay. haddii xataa qabiilka adiga uu ilaahay ka dhaliyay uu ka fiican yahay qabiilka kale lacala ma aaminsan aniga taas. ma adiga doortay adan ku weydiinaya waa maya. alxamdulillah arrinka inuu sadicin haddana idinkoo og taas jawaabteeda anigaan ogahay inay maya tahay ba waxa isku dulminaysaan. qofkiinba qofka kale uu ku dulminaya oo ku caayaya oo waliba cirdiga iyo sharafti qofka uu lahaa oo rabbiga subxaanahu wa ta'ala uu naga xaaraantimay oo ay ka mid tahay dardaaranadii ugu dambeeyay rasuulullaahi salawaatullaahi wa salaamu alayhi uu ku dardaarmay adduunkan ayaad isku cayseen. waxaad caayaysaa cirdiga walaalkaa sharaftiisa adigoon garanayn wax faa'iido aad ka helayso. walaal ma ii sheegi kartaa faa'iidada kuugu jirto cayda walaalkaa? ma ogtaa in la xarimay? ilaahayna dulmiga ma jeclaa. ilaahayna naftiisa ayuu wuxuu ka xarimay dulmiga. allah xarama dulman calaa nafsihi wayiri وجعلته بينكم محرما أي فلا تظالمون. إخواني ربي قابك وراها يصص أنا كان ظلمي حري إسك حرمي وحما ظلمي ربي كان وما ربك بظلام للعبيد. إلهي ظلمي ما سميه حضني ديك الظلمين شخصي قبرير أنا ضدك ضد ما ضلين مياه ولا المله أبا مله هوي مله حشود مله أو أحياجي محاكيني كريك قبرير أو والله وكحما ذانيقا محاكيني كريك قبرير والله باتن أنقارن إني فيسبوك انتي سو استاكتو كيكو هذا شو واح أفكيقا إي أفقف حشوني بوك حشون لها قبرو في النظوة إنك ريالتي أنا وحا شيطانك وحو
ku shaqaystaa ama uu adeegsadaa dumarka. bal fiiriya dabkaad horinaysaan. rasuulku wuxuu yidhi fidnadu way hurdaayay qofkii kiciyaa nacmatullah. wallaahi fidna hurdaa kicinaysaan. waxaad isku diraysaan qoomam walaalo ah ilaahayna uu walaaleeyey. waxaad isku diraysaan dad hal shacbi ah oo aan waxba u kala socnayn. waxaa ka dhexeeya af, waxaa ka dhexeeya jir, waxaa ka dhexeeya dhiig, waxaa ka dhexeeya midab, waxaa ka dhexeeya dhiig, waxaa ka dhexeeya wax walba. Somaliland Soomaaliya kala leedin waa dad walaalo ah. qofku siyaasadu lahaan karaa uu asaga shakhsiyadiisa uu ku doonaya asaga qaab ku arkay inay dantiisa ku jirto inuu kugu diido. laakiin ma kala go'ayaan dadku waa walaalo, waa abtiyo hooyo, waa abtiyo adeer. subxaanallah. markaasaad waxaa ka dhex abuuraysaan dulmi iyo fisqi iyo fasaad iyo dhiig iyo xumo in la isku qaado. markaas waxaad caayaysaa qoom oo dhan oo ku jiro oday sheekha sharaf iyo cizi ilaahay agtiisa kale, rabbina uusan ogoleen in laga caayo. waxaad caayaysaa hooyo tan adiga ku dhashay lamid ah. waxaad caayaysaa dad culimo ah oo jamac ah iyo mufrad labadaba leh. waxaad caayaysaa ilmo aan malaa'igtuba ka xishootay garbahoodii fuulin. intaasoo dhan baa ka mid ah. xageed gelaysaa maalinta qiyaamaha markay kusoo saftaan adigoo hadda dambiga arkaya ku jiro waxba haysan? ma qaadi kartaa? wallaahi waa maya jawaabta. waxaan jeclaysan lahaa inaad ka tagtaan waxyaabaha dibka idin dhigay 100 sano, inaad ka tanaasusaan ood iska daysaan waxyaabaha noloshiina dibka u dhigay oo mustaqbalkiina qiimihii iyo dadnimada lahaan lahaydeen qoomka kale xataa qoomiyadaha kale xataa dhexdooda ku lahaan lahaydeen idinka baabi'iyay. habar 60 jira oo wax u haran jirin cimrigeeda inta badnaa soo qaadatay ba inta soo istaagtay caytamaysa. xageed u socotaa? maxaa ka horeeya? maxaa dhigatay? isweydii. bal adaa u baahan bay inaad isweydiiso su'aale. xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasab. wallahi waa sidaa. war isxisaabiya. garbihiina malaa'igta saaran baa idinka xishootay. wallahi waxa ay ku hadleen gabdhaha qaar subxaanallah midda kale ka xishooda xubnihiina aad babliga ka sheegaysaan. naagba naagta kale caayaysaa laakiin wallahi adaa iska hadlaya. heblaayaysaanaa tahay, heblaaya heblow kana weyd. subxaanallah. xishoodkaad u taga dhibkaasay leedahay. war xishooda. war gabdhaad tihiin. xishood buu ilaahayda amray. aawa xishoodkii layda amray meeyey? xageed geyseen? mise maba tihiinba dadkii ilaahay u xishoodka amray. raggaa usoo laabanaya. ragow ilaahay idinku qawaan buu idinka dhigay. dulmigii fasaadka ragga celin lahaa baa tihiin. gurbaanka dadkii tumi lahaa ma tihiin. xumaha noocaasa markay aragtaan dadkii loo hoyan lahaa oo balaayada dejin lahaa baa tihiin. oo gabdhaha waanin lahaayoo wacdin lahaa oo dhihi lahaa qaladka iska daaya. laakiin ma tihiin raggii albaabada u horseedi lahaa, u furi lahaa xumaha. rag baan arkaya caytamay heblaaya hebel weyn baa leedahay. war xishood. anigu hooyadii ku dhashay waxba kama sheegaya laakiin akhlaaq ma lihid. akhlaaqda waa wax qaaliya. ma garatay? akhlaaq la'aantu waxyaabaha noogu wacan weeye inaan babliga ka caytano. akhlaaqda la yeesho. nin gabar caayo waxay imaatay sanadadii dambe. ma ahayn waxaa caan ku nahay. annaga Facebook oo ku jira la'aanahay. every single day waxay socotaa almost 5 days consecutive oo ay kala joogin oo la isku soo jawaabo. war miyaada ka tagi karin? tanaasul ma lihid miya? qofkan afkiisa ku caytamay hadduu caytamay adigu way qaladkiisa qalad ugu saxaysaa. wuu khaldamay kaba soo qaad. ma khalad baa khalad lagu saxaa? ikhwaani maya. ilaahay aan ka cabsano. wallahi ilaahay aan ka cabsano. dulmiga aan la dagaalano. aan reebno. waa waajib. man ra'aa minkum munkaran falyughayyir biyadihi. waa xadiiskii. haddaadan awoodin fain lam yastadic fabilisaanik aa lagu yidhi. fain lam yastadic fabiqalbik wadalika adcafu aliimaan. waa waajib sama. marka arrinka noocaasa si wada jir leh
ha looga hadlo soomaalinimadan waa balanteena dadnimo waxaan ku nahay qiimo waxaan ku leenahay wadajirka ilaahay xataa qoomku markay wadajir yihiin buu xisaabiyaa bal fiiri maanta hadduu qof yar wax ku dhaco dambiga aan sameynayna oo isku wada fiirsanayna maanta hadduu ilaahay nagu halaagayo dulmiga iyo sharaf dhaca iyo xumaanta wallahi ilaahay qof uma cadaabaya dadka إلهي وحو وعذابي ضدك واتقوا فتنة لا تصيب